toddobaadkan barnaamijkayga barbaarta show waxaanu ku eegi doonaa gudniinka fircooniga iyo dhibaatada uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan hablaha Soomaaliyeed. haddaba ummad waliba hay sidaynu ka wada warhayno caalamka joogtahay waxa ay leedahay dhaqan iyo caado soo jireen oo ay ka dhaxleen awoowayaashood. haddaba ummadda Soomaaliyeed xagee buu uga yimid dhaqanka gudniinka fircooniga? sida la og yahay gudniinka fircooniga waxa ka timaaday fircoonigii hore oo Egypt. And that perhaps from the east of Africa it spread westward. But there is FGM is practiced in 28 countries in Africa, but in very small pockets in the country, so it's not the whole country necessarily. And then also found in some parts of the Middle East and in Asia. gudniinka fircooniga oo maaragtay tan ka isticmaalno wadankeena oo type 3 la dhaho oo gudniinka oo gabadha maaragtay awreeda dhan la jarayo oo la tolaayo markaas. FGM is defined by the World Health Organization as the partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs. So the word FGM is female genital mutilation, which is the name that we use for female circumcision. There are 4 different types of FGM, and the type 1 is where just the clitoris has been removed. Type 2 is where the clitoris has been removed and then sometimes parts of the labia. And type 3 is where usually the clitoris has been removed and then the outer parts of the labia have been cut and then it's all been stitched up. So often there's a very small opening left, maybe half a centimetre diameter, through which women will pass urine and menstrual blood and give birth. waxa weeye qaybo badan way gudniinka anigu ma aragtay si aad u sii kalimahayo waxa way 3-4 qaybood waaye qaybta sunnada ah mid sunno waaye mid kalena waxa way gudniinka oo ma aragtay geedka gabadha la wada jaraayo midna waxa waaye midka anaga aan isticmaalno type 3 la dhahaa qaybta saddexaad weeye oo gabadha dhan inta la bahalkan la jaro fuuriyahana laga jaro la wada tolo waaye ayadana qaybtaas waaye marka taas waxa waaye waxa isticmaala wadamo badan oo ka ah Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Mali, Somalia, and Sudan isticmaala qaybta saddexaad marka qaybtaas waa anaga qaybta hadda aan haysano oo rabna ma aragtay noogu badan dadka noo yimaada. dhaqan ahaan Soomaalida maxay u aamini lahayn waxaanu dhibaato oo jiro ay wali u rumaysan yihiin waxa soo jireenka ah? inta aniga shaqeyn jiray maxaa la dhahaa dadka wax ma la barin ayka wali waxa u maleynay ina waxan tahay ina diin tahay also maxaa culture-keena ba sameynaysa. So religion and culture ba mix isku noqdeen, so waa kala saari kari waayeen. I think in this country it's important to know that it is illegal, so it is against the law. It's against the law to be involved in carrying out FGM to a child in this country, but it's also illegal to take a child out of this country to have it done. So a child that's born in this country, if they're taken back to Africa, the parents or anyone involved in taking them out of the country can also be prosecuted, and the law is 14 years in prison. sharciga wadanka degsan qofna lama gudi karo gabdhaha lama gudi karo wadankan UK waxaana weeye waxaana qofkii guda ama xataa inta kaxeeya wadanka kaxeeya fasaxyada ku soo guda Soomaaliya waxa lagu xukumayaa 14 sano oo xarig ah. taasna waxa daba socda social service-ka, school health advisors-ka aniga aan kamid ahay ayaa la shaqeeya. marka waa inay ogaadaan dadka Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed haddii aad suubisid wadanka dibadiisa ama gudihiisa ama ilmaha adoo fasax u waday waxaan qabnaa dhaqaatiir baara oo maaragtay oo fiiriya caruurta markii la keeno haddii laga shakiyo markaasna maaragtay usoo gudbinaya socialka markaasna markaa waxaa dhacaya maaragtay waalidkii in la xukumo oo halkaas dhibaato ay kasoo gaarto.
qoraallo kala duwan oo laga qoray gudniinka fircooniga waxa uu sheegayaa ku dhawaad 28 waddan oo ay ku jirto Soomaaliya oo ku yaal qaaradda Afrika inay isticmaalaan gudniinka fircooniga halka u dhaxaysa hablaha da'dooda la gudana 4 jir ilaa iyo 14 gaar ahaan survey gooni oo laga sameeyay Suudaan iyo Soomaaliya waxa uu sheegayaa 25% inay ugu wacan tahay dhalmalaanta hablaha gudniinka fircooniga ah. maxaa la gudniinka fircooniga waxa leeyahay short term iyo long term oo maxaa la health issue jirta. It's very important to understand that any of the different types of circumcision done on a child can result in bleeding, infection, and sometimes even death. So although some of the types may be more a minor procedure, it can still, like I said, cause very big problems. A lot of scarring, and what we see in our clinic is a lot of young women with very painful periods, recurrent urinary tract infections. Sometimes if they've had lots of infections, this can lead to pelvic inflammatory disease and infertility. dowladda Ingiriiska waxay ka qabtaa in markay ay fiiriyeen dhibaatada uu keenay gudniinka in xarig qofka la xiro 14 sano waxaa keentay markii ay dhaqaatiirtoodii fadhiisteen ay arkeen dhibaatada ay geysanayso FGM-ka gudniinka fircooniga ah ayay waxay go'aan ku gaareen wadankan Ingiriiska ah qofkii suubiya in uu xarig yahay because of waxay darseen dhibaatooyinka hadda ay gabadhan sheegayso kale sida in galmadii ay dhibaato ku noqonayso in kaadi haystii go'ayso markay dhalayaan naagaha in ay koos garan karto dhalmada oo infertility wax la dhaho dhalmada oo gabadha aysan dhali karin marka qaarkood ay complicationkaas dhibaatadaas geysanayso dhibaatada maxaa fircooniga gudniinka waxaa jira short term iyo long term. Short term ka waxa waaye bleeding shock or maxaa la dhahaa period pain. Long term na waxa waaye maybe caruur ma haysanayso oo longer labor ba dumarka ku dhacayaan. In infection waa jirta. waxaa la ogaaday qasaarada ka yimid hadaa fiirsan figurkan halkan ku yaala waxay ku tusinayaan inta qof oo imaanaysa oo rabta inay gudniinkii dumarka imaanaya ama ragooda la imaanaya oo gudniinka fircooniga inay iska bedelaan rabaan because of dhibaato badan ay kala kulmeen sidaas daraadeed ayaa hadeertaan waxay noqotay wax laga hortago oo loo baahnayn in la suubiyo. There is help out there. We have our services run by women for women. There is myself, another specialist midwife. We have a health advocate and a counsellor. The service is completely free. They can self-refer, so they don't have to go and see a GP first. We are happy to see women who want to be opened, and any woman who's having a problem because of a tear or incontinence or problems with the FGM. So it doesn't only have to be for women before they get married, but ideally we would like to see the women as early as possible so they're not waiting until they're pregnant. Not only dumarka Soomaaliyeed, abayaasha Soomaaliyeed xataa way ku jiraan because of dumarka waxaa dhala abayaal Soomaaliyeed. So then waxa weeye clinic-gan waxaa NHS-ka ayaa bixisay naaga ayaa gabdha ayaa maamula naaga ma dhihi karo gabdha ayaa maamula waxa ka shaqeynayo dhan waa dumar waxa way lacag la'aan ayaa ku imaan kartaa waqtiga rabtidna waa soo wici kartaa jimco ilaa iyo isniin ilaa iyo jimco 9 to 5 sagaalka ilaa 5 galabnimo soo wici kartaa xataa gabdhihii hore loo guday oo dhibaatooyinka sida inay isku go'een inay kaadi haysta wax ka gaareen kulligood way imaan karaan dhaqaatiir loo diraya xawilaadeennana dhakhtarka kale isbitaalka weyn 5 daqiiqo ayaa dhaqso ayaan u dirnaa tan kalena maxay tahay markii anaga noo yimaadaan ay u yimaadaan clinic-gana dhaqso ayaa loo arkaya waxooda dhaqso loogu dhameynaya soo marka waxaan ku codsanaynaa gabdhaha dadka dumarka gudniinka fircooniga qabo kaliya maahane wixii kale oo gudniinka fircooniga dhibaato u geystay oo xagga aan isku go'een inay kaadida cishan karin inay
ani dhibaato ay dareemayaan way imaan karaan, waa la fiirinaya, waa la baaraya, waxaana loo dirayaa dhakhtarka oo ah specialist ama qasaa'iga oo ku shaqo leh arrintaas. You know, we are happy to see women from anywhere in the UK, and we're based in West London in the UK, but we really are happy to see women from anywhere, and they can contact us, they can ring us or text us to find out more information about the clinic. Waxa uu furan yahay inay yimaadaan dumarka Soomaaliyeed oo degan Ingiriiska, dalka Ingiriiska meel kastoo yahay, wayna imaan karaan waqtiga ay rabaan. Waxayna ka furan tahay Acton haddii ay clinic la xiro wanaga hooyooyinka maarta waqtigooda waa adag yahay si ku helaan waqti anytime soo wici karaan, waxay ku duubi karaan maarta answering machine-ka ay ku duubi karaan magacooda iyo telefoonkooda waa la wacayaa. dadka ku takhasusay gudniinka fircooniga ah waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka uu leeyahay, balse bulshada Soomaaliyeed gudniinka fircooniga waxa ay ku dhaqmaysay muddo haatan laga joogo qarniyaal aad u fara badan. haddaba sidee bay u joogsami kartaa wax qarniga inta leeg la soo isticmaalayay?